nabadgelyo. Maalin maalmaha ka mid ah xilligii Nabiga sallallahu alayhi wasallam baa hooyo ka mid ah hooyooyinkii muslimiinta waxa ka lumay cunugeedii ama ilmaheedii. Kadib marka uu ka lumay, waad dareemi kartaa hooyo ka lumay ubadkeedii waxa ay gashay baadigoob iyo raadinta cunugeedii. Sida ay u raadinaysay, xilligaasna maysan jirin wax boolis raadinaya. Sida ay u raadinaysay waxa ka soo gudbay maalmooyin, isbuucyo, adigoo dareemi kartid walwalka hooyo ay dareemi karto iyada uu cunugeeda ka maqan yahay. Sidoo kale waad dareemi kartaa hooyo xilliga aan maqannahay 10 daqiiqo haddaan soo daahno sida ay u walwalayso. Hooyadan cunugeeda waxa uu ka maqnaa maalmo badan ilaa iyo isbuucyo. Maalin maalmaha ka mid ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtii oo fadhiya meel baa waxaa ku soo baxay hooyadii oo aragtay cunugeedii. Waad dareemi kartaa hooyo hilow qabta maalmooyin cunugeeda uu ka maqnaa, dhibaatoonaysay, fikir iyo murug ku jirtay. Kadib marka ay aragto cunugeedii waxa ay samayn karto, hooyadii waa ay soo carartay iyadoo ooyeysa, bay cunugeedii laabta gelisay oo ay ku dul oysay iyadoo hilow iyo farxad isugu jirtaahi. Kadib buu rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu dib u jalaacay asxaabtii oo uu fiiriyey malaha waaba iyagoo oynaya. Markaa buu rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku yiri asxaabtii, miyaad malaynaysaan hooyadan inay cunugeeda u ogolaanayso ama ku tuurayso dab? Markaa bay rasuulka sallallahu alayhi wasallam asxaabtii ugu jawaabeen, bala ya rasuulallah, maya taa ma dhici karto rasuulkii allah, sababtoo waxaan arkaynaa jacaylka ay u qabto ubadkeeda, jacaylka iyo naxariista iyo murugada ka muuqatay inta aysan helin ka hor iyo kadib marka ay heshay iyo hilowga ay u qabtay. Kadib buu rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiri, wallaahi ilaahay ayaa adoomadiisa uga naxariis badan hooyadan sida ay ugu naxariisanayso ubadkeeda. Hadalka aad buu u qiimo badan yahay. Ilaahay ayaa inooga naxariis badan wax walbaahi. Ilaahay naxariistiisana lagama quusanayo xilli kasta. Dembi kasta oo aan samayno, dembi kasta oo aan ku dhacno, wax kasta oo aan samayno, markasta alle waa mid inoo naxariisanaya. Ilaahay waxa weydiisanaynaa naxariistiisa iyo inuu noo naxariisto, sababtoo Ilaahay waxa uu ku sifooway Ar-Rahmaan Ar-Rahiim. Ilaahay waa mid naxariis badan, xilli kastana inoo naxariisanaya, inooga naxariis badan waalidiinteen, inagoo aan ognahay sida hooyooyinkeen iyo aabayaalkeen inoogu naxariis badan yihiin, buu Ilaahay uga sii naxariis badan yahay adoomadiisa inta ay u naxariistaan waalidiinta. Ilaahu naxariistaadan ku weydiisanaynaa, Ilaahay naxariistiisa aan laga quusanin. Rabbina waxa uu yiri, qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmatillaah. naxariista Rabbi xilli kasta iyo dembi kastaahi oo aad samayso ha ka quusanin, sababtoo ah Rabbi waa mid ghafuur raxiim ah. dembi kasta oo aad gasho buu cafin karaa, waxba lama aha, balse waa inaadan naxariista Rabbi aadan ka quusanin. Rabbow inoo naxariiso, dembiyaalkeenana inoo cafi.